NASA ayaa hawada sare u dirtay jiirar, waxayna samaysay wax laga cabsado lafahooda. Sabaynta ku saabsan micrograffiti waxay u ekaan kartaa nasasho farxad leh oo loogu talagalay qalfoofka miisaanka jidhka bini'aadamka, laakiin marka irbixiyayaashu ay bilo ku qaataan meel bannaan, dhufnaanta lafahoodu waxay qaadataa dhaawac halis ah oo laga yaabo inay weligood si buuxda uga soo kabsan. Saaxiib sabiskaaraab ii saar waayo haddii aadnan adigu i caawin cidna ima caawinaysi biliis mahadsanid. Daraasad lagu sameeyey jiirarka dusha sare ee saldhigga hawada caalamiga ah ayaa saynisyahanada NASA siinaya tilmaam wanaagsan oo ku saabsan sababta khatartan caafimaad ee muhiimka ah ee aan xal loo helin ay u jirto. Sida ay soo baxday, khasaaraha lafaha waxaa laga yaabaa in aysan la xiriirin shucaaca meel bannaan, la'aanta iftiinka qorraxda, ama arrin la mid ah oo nidaamsan. Kadib markii ay jiirarku 3 maalmood ku jireen orbitka, qaybo ka mid ah qalfoofkooda ayaa muujiyey khasaare ka badan kuwa kale. Marka la barbardhigo jiirarka xakamaynta dhulka ee aan laga xidhin meeraheena, femurska dambe ee jiirarka ee meel bannaan waxaa ka daloola godad waaweyn, gaar ahaan edifyada ay ku biiraan sinta iyo jilibka. Taas beddelkeeda, qaybta lumbar ee jiirarka ayaa si cajiib ah u ahaan jiray. Daraasadeennu waxay si gaar ah diiradda u saartaa waa femur sababtoo ah doorka ugu weyn ee miisaan qaadista ee jiirka, sharax cilmi baarayaasha NASA iyo Maxadka Sayniska ee Marblesbare. Bini'aadamka 2 lugood ah, lafdhabarka lumbar wuxuu inta badan qaadaa miisaanka jidhka sare, laakiin jiirka 4 lugood ah, qaabdhismeedka jiifka ah uma adeego isla doorka miisaan qaadista. Tani waxay soo jeedinaysaa in lafaha naasleyda ee miisaanka ku leh dhulka ay yihiin kuwa ugu badan ee ay saamayso micrograffiti ee orbit. Waxaa laga yaabaa inay la mid tahay isticmaal ama lumiso fikradda cilmiga neerfaha. Haddii lafaha miisaankooda aan loo shaqayn sidii caadiga ahayd, waxaa laga yaabaa inay bilaabaan inay xumaadaan. Jiirarka irbixiyeenada ayaa lumin ufnaanta lafaha iyaga oo wata moodo cajiib ah, daraasada NASA ayaa shaaca ka qaaday. Marka jiirarka dhulka lagu hayo qafis xadidaya dhaqdhaqaaqa, waxay muujiyeen lumitaanka ufnaanta lafaha miisaankooda laakiin ilaa xad ka yar jiirarka micrograffiti. Si loo xisaabiyo walaaca gantaalka, jiirarka kantaroolka dhulka ayaa sidoo kale la kulmay jilitaanka duulimaadka. Haddii shucaaca hawada sare ee wareegga dhulka hooseeya ama arrimo kale oo nidaamsan ay yihiin saamaynta asaasiga ah ee lafaha luminta inta lagu jiro duulimaadka hawada, waxaan filan karnaa isbeddelo nidaamsan oo ku yimaada nidaamka qalfoofka, sharax cilmi baarayaasha. Irbixiyeenada jiirarka madaxa femoral. Qayb ka mid ah jiirarka madaxa femoral, isbarbardhigga jiirka ku noolaa wareegga dhulka hoose ee 3 maalmood FLE, iyo kuwa ku jira wareegga 1 maalin BL, jiirarka xakamaynta dhulka GR, iyo jiirarka dhulka xakamaynaya ee lagu hayo qafis xadidaya dhaqdhaqaaqa THIF. Ahil iyo al, blos one 2.25. Haddii khasaaraha uu sababay shucaaca ionising, tusaale ahaan, cilmi baarayaashu waxay filayaan inay arkaan qaybaha cufan ee dibadda ee lafaha oo ilaalinaya godka dhuuxa gudaha. Laakiin taasi uma muuqato. Xumaantu waxay ku dhacdaa gudaha jiirarka. Luqunta femoral, tusaale ahaan, waxay leedahay dabool sare oo lafo ah oo la taaban karo, haddana waxay muujinaysaa lumis weyn oo gudaha ah, dhuuxa lafdhabarka ah marka ay la kulmaan micrograffiti 3 maalmood. Jiirarka hawada sare ee femur. Qoorta femoral ee jiirarka kantaroolka dhulka GR iyo FIF iyo jiirarka irbixiyeenada FL iyo BL. Ahil iyo al, blos one 2.25. Kadib wakhtigaas badan ee wareegga dhulka hooseeya, qorayaasha daraasadda oo uu hogaaminayo bioengineer Rukmani Ahil ayaa sheegay in jiirarka korka ees ay la kulmeen kaliya qiyaas yar oo maalinle ah oo shucaac ah. Daraasadaha la isku daray ee muujinaya shucaaca ayaa kicin kara lafobeelka, qiyaasta ayaa aad u badan, aad u saraysa, oo u dhiganta ilaa 3 sano oo ku noolaanshaha dushays. In ka yar nus sano marka ay orbit hoose ku jiraan, si kastaba ha ahaatee, irbixiyeenadu waxay la kulmi karaan qiimo laan 10 sano ah, taasoo laga yaabo inay weligood si buuxda u soo kabtaan. Bil kasta, elis ahaan, dadka safarka ah ee hawada sare waxay lumiyaan 1% ama in ka badan ufnaanta laftooda, qiyaastii 1 jeer heerka lafojileecu ee dhulka. Hoos u dhacani wuxuu si weyn u kordhiyaa halista jabka lafaha dhaadheer sida femur. Si ka duwan irbixiyeenada bini'aadamka, jiirarka lagu tijaabiyey daraasaddan hadda waxay ahaayeen kuwo yar oo ku jira marxaladaha dambe ee koriinka lafaha. Micrograffitiga femurkooda oo ay ahayd inay sii koraan in muddo ah, waxay muujiyeen calaamadaha ossification DS ah oo u beddelaya carkewda laf ka hor inta aan caadiga ahayn. Tani waxay suurtogal u tahay inay xadido koriinka lafaha, koriinka oo istaaga. Irbixiyeenada jiirarka femur dhuuxa lafta. Daloosha dhuuxa luqunta dheddigga ayaa ku balaartay duulimaadka hawada sare laakiin si weyn uma beddelin dada iyo xaaladaha deegaanka. Ahil iyo al, blos one 2.25. Natiijooyinkan digniinta ah waxay ka yimaadeen daraasadda NASA ee muddada ugu dheer ee duulimaadka hawada sare ilaa maanta.
Wakaalada hawada sare ayaa sheegtay inay tahay tii ugu horeysay ee tijaabooyin badan oo lagu ogaan doono sida loo ilaalin karo caafimaadka irbixiyeenada marka ay hawada sare maraan. Haddii malaawaalkooda cufnaanta lafaha ay sax tahay, waxay soo jeedinaysaa in tabaha sida cuntada aysan hagaajin karin caafimaadka lafaha irbixiyeenka. Treadmills oo leh sunka dhulka ku haya isticmaalaha ama aaladaha u ekeeya qaadista miisaanka meel bannaan waxay caddayn kartaa waxtar badan.